بسم الله الرحمن الرحيم. داوديال waa mar kale iyo barnaamijkeeni guri barwaaqo ama albaytu saciid gurigii barwaaqada ahaa farxadda lahaa reereynta lahaa waxaan maanta ku soo qaadanaynaa qodob aynu isleenahay wuxuu u baahan yahay inaynu in badan ku celcelino si aynu wax uga bedelno kow sideebaad u kasban kartaa xaaskaaga walaga yaabaa su'aashan inay rag badan agtooda ay caadi ka tahay laakiin waa qadiyad u baahan dadaal waa qadiyad u baahan isbedel barnaamijkan oo islaanay dhowr qaybood buu noqon doonaa qaybta koobaad aan ku bilaabo waxa dhextaal u ah mar walba waynu xasuusnaanana xadiiskii xabiibkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam inoogu tilmaamay qoyska markuu ka waramay ee wili khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli waxa idinku khayr badan oo idinku wanaagsan ku u wanaagsan ehelkiisa oo lamaanihiisa aniguna waxaan ahay ugu wanaagsan ehelkiisa ama mid u wanaagsan ehelkiisa oo khayr wanaag leh imaam tirmidhi waa soo saaray qodobo fara badan baa jira marka oo dadka ka warama baabkan zawaajka ama usrada ama qoysku ay dabcan ka waramaan balaaynu bilowno qodobka koobaad saynu marka u helno su'aasha jawaabteeda sideebaad u kasban kartaa xaaskaaga lamaanahaaga qaybtii labaad ee noloshaada tiin dhameystirasay noloshaada caruurtaada hooyadood tii asturasay ceebahaaga oo dhan taad culays kastoo kugu dhaca aad doonayso inaad kula qaybsato tii nolosha kula lamaanaysay in badan oo kamid ah dadka raggu ama waqti xaadirkan lagu jiro raggu baabkaas waa ay ku hooseeyaan ama ihtimaam siiyaan laakiin waa halka ay arrimo badani ka guntamaan ama ay ka dhaqaaqaan ama ay ka socdaan ama ay ka agaagaan waxaad kula hadashaa ooridaada ama xaaskaaga alfaad wanaagsan waxaanad qurxisaa usluubka aad u isticmaalayso ama aad u dhigaso adigoo mar walba ku ladhaya mahadnaq iyo duco oo qodob aad u weyn haddaynu dhaqan ka dhigano albaabo badan oo inaga xidhan ayuu furaya laba xaaskaaga waxaad u samaysataa kunyo ubadkaaga mid ka mid aad ugu kunyeynayso ama kuwa kuu soo socda rajaynaysan naanays wanaagsan magac wanaagsan oo aad ugu yeedhi karto oo aad isla taqaanaan oo farxad gelinaya saddex waxaad kula dhaqantaa xaaskaaga mar walba intii karaankaaga iyo awoodaada haba yaraataba inaad ka warayso hadiyadaha wanaagsan gaar ahaan waliba waqtiyada munaasabaadka waliba hadiyada waxa la yiraahdaa waxa u sii wanaagsan ta qofku mufaajaada aad kediska kaga dhigas warago qodobka laga warayo afar waxaad ku dadaashaa inaad isdhaafiso qaflad iyo isdhaafin iyo mooganaad kaga sugnaato akhdaada iyo gafafka xaaskaaga ka dhacay oo aanay mar walba noqon qalad kasta oo ka dhaca xaaskaaga inaad ka falceliso haddii qaladkaasi aanu shariicada islaamka khilaafsanayn haddii aanu akhlaaqda teeda wanaagsan aanu khilaafsanayn haddii aanu ahayn khalad weyn oo dhaawac ku keenaya noloshiina dhaawac ku keenaya tarbiyada ubadkiina waxaad ku dadaashaa inaad qodobka isaga ah mar walba aad ku qaabisho ama aad kula dhaqanto inaad qalad ka dajiso inaanad weynayso ku qaban oo anad maxaa loo qaldamaya muxuu qaladkan u dhacaya laakiin marka qaar cafiska aad ku daydo marka qaar waxa laga yaabaa qalad dhaafta inuu saxo tobanaan qalad oo kale oo dhici lahaa halka marka qaar laga yaabaa qalad aad ka filcelisaa inuu sababo tobanaan qalad oo kale oo dhici lahaa haddii xaaskaaga oo qodobka shanaad aad ku aragto mowqif ama arrin wanaagsan mar walba waxaad ula degdegtaa mahadnaqeeda iyo ammaanteeda iyo inaad ku abaal mariso wixii munaasabka ku ah maxaa ka qiimo badan bal waa inoo xalqadan iyo xalqadii xigta insha Allah taala aad iyo aad mahadsantihiin wajazaakum Allahu khayr